madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo qoyskiisa ayaa la sheegay inay ka damqadeen eedow gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu injineer Faysal Cali Waraabe dhawaan u jeediyay oo nuxurkoodu ahaa in madaxweyne Biixi uu dalka ka dhigay ganacsi qoyskiisu uu leeyahay oo kale. injineer Faysal Cali Waraabe isagoo dhawaan ku sugan dalka Imaaraadka uu warramay telefishinka Home Cable TV ayaa waxa uu madaxweyne Biixi ku eedeeyay inuu go'doon geliyay Somaliland waxaanu isagoo arintani ka hadlayay uu yiri dawladdu waxa weeye wasaaradda leedahay DG leedahay baamushari baa ku nool wixii oo dhan inuu family-giisa ka dhigo oo inuu kala socnaan jirtay siyaasadda iyo business-ka iyo family-gu inuu kala socnaan hadda waxa isku qasan qoyskiisii raaskiisii iyo waxa isku qasan business-kii oo waxa wixii shaqadii wasaaradda isaga haya wasiir qoro talaabo qaad ma jiro wuxuu ka dhigay wixiiba one man show buu ka dhigay lama diidana laakiin deen la doortay laakiin waxaan arkaynaa inuu wadankii uu ka dhigay hal qof min wax la yaam micro management ayuu ka dhigay wax kasta aniga ana saxiixaya wasiiradu awood ma leh taasna wada jeedna family-giisii aruutu abtigu ahaa walaaladii dadkiisii oo dhan waxay galeen business-ka galeen oo waxay wadanka hawshii dhaqaalihii ayuu ku yiri. haddaba xogo soo baxaya ayaa sheegay in hay'adaha sharciga loo gudbiyay cabashada qoyska madaxweyne Biixi ee ka dhanka injineer Faysal Cali Waraabe. gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo wargeyska Geeska Afrika arintani wax ka weydiiyay ayaa waxa uu si kooban u yiri waan maqlay arintani oo suuqan ka maqlay. hase yeeshee taliyaha ciidamada dambi baadhista ee CID-da gaashaanle sare Faysal Xiis ayaa beeniyay arrintan waxaanu sheegay in aanu maqal oo aanu ogeyn warkaas. taliyaha oo wargeyska Geeska Afrika weydiiyay arrintan ayaa si kooban waxa uu yiri anigu maan maqal mana ogi waxaas aad sheegayso. waxa isaguna xabsiga ku jira xogahayihii guud ee xisbiga mucaaradka ee Maxamuud Saleebaan Ramaax.